هذه horta heestan inaan saaxiib nahay oo qalilan la yidhaa ayaa heestan taqsiid ku sameeyay wali mushkil noqday gunayo in isagu hadda iska sameeyay ma garanay waniyo warka waxa ka jira horta way jiraan oo fanku hatta ama ku soo beeray iska daayay ku jira oo meel xamaraya ay leexaysidii garanaysa marka soo galaysan iska wada warkiisa furboogii naxariista badankiina inaad fahanteen ayaan filayaa ujeedka hadalkayga si kala hadii aan u micnayna haddaanay dhihin bidhaantaada oo maxiisa waa been waa heesta toddobaadka heysata baraha bulshada haddaba waa kuma fanaanka ku luuqaya heestan qisada ku hoos duugan ereyada qalbi taabashada leh raadkay ku reebta bulshada qaybeeda kala duwan intaas ayaa muuqaalkeena ku eegi doonaa haddaba walaal intaan u gudagelin muuqaalkeena waxaan ka codsanaynaa muuqaalka inoo like raysiya dhiirgelin inoogu noqoto la wadaago saaxiibadaada si aan u helno kuwa adigoo kala ah amiin cabdi maxamuud oo afgarashiisa tahay min yare waa fanaanka toddobaadkii la soo dhaafay qaaday heesta qalbiyada ka taabatay bukaano badan oo jecel la ildarnaa kuwa aan doonta jecelka saanin ayaa dareemay ereyada qalbiga taabashada leh ku jira heesta kuwa hore ugu guuldareysay xogxogashada xiriirka ayaa rajo weyn ka helay heestan adigoo iminka daawanayna heestan sidee ayay kuu saamaysay fikirkaaga waana la wadaagi kartaa anay magacayga saddexan amiin cabdi maxamuud waxaan ku dhashay Hargeysa waxaan ku soo barbaaray Hargeysa degmada Axmed Dhagax xaafid Axmed Gurey aan ku soo qaatay dhalinyaradeedii waxbarashada dugsiga hoose dugsi sare jaamacad intaaba xabiibul malaayiin waa nooc fanaan luuqadda dhalinyarada ku luuqeeya fanaan la hadla qalbiyada jecelka la buka heesiisna yihiin kuwa hirgalay sanadii 2019 ayay ahayd markii uu ogaaday inay ku jirto hibo faneed sidoo kalena uu dareemay inuu meel wanaagsan ka gaari karo fanka mar qura ayuu ka hilaacay Hargeysa wuxuuna qalbiyada ka xaday dadka fanka u dhuunduleela fanka waxaan ku soo biiray 2019 walaalaha horta fanka waxay igu dhiirigeliyay Allah naxariisto in loo jiray Mustafa Mar fanaana maanta uu dhintay Ilaahay naxariisto markaas ay dhiirigeliyay qaab nooc ku arkan kaas markii معني معلم فكلس كم كان وارن معلم باركانو هيسي صح هيس نوع حق هيس مرة هيس وحقي ها عمر بالله قالت الله نحس اي انا تدعي على هيستاس هيستا انا قاضيو اد بيودريستو سو يابا سو دانيو فانكا وبكون كاسا waxay u leeyahay fanka صح saa ugu dhaxtay xataa idinka fanka wax walba bilaw ah waxay leeyihiin dhibaato hor leh fanaanmin yare wuxuu la soo kulmay dhibaato fara badan markuu saaxada fanka soo koray waxaa jira dad ka xun horumarkaada oo mar walba raba inay ku dhibaateeyaan aniga kartideeda iyo dulqaadkayga ayaa ku milmaray ilaahay ka sokoona maanta heerkaan gaaray waxaan ku gaaray dulqaadkayga waniyo warka waxa ka jira horta way jiraan oo fanku hatta ama ku soo beeray iska daayay ku jira oo meel xamaraya ay leexaysidii garanaysa marka soo galaysan iska wada warkiisa aniga meel dhaxmarana la xasidii qolada waxa sidima kuwa la xamiisiyaasha miya kuwa ereyada qormiya mise fanaaniinta wallahi way soo jiraan صح abwaan fanaan musician intaba laakiin isku dhex jiro qaab nooc oo soo samata baxda marka dhibaatooyinkaas wallahi qaab inaan gaadhigayga isku wado anu macniina dareensanayna waxaan wadi karaa ma iska deyn karo oo qof nooxii aanu haduu macay xaysidaan waxba ka qaaday taas ma saamisi heesta furboogga naxariista 9 maalin oo qoraya talaabarta meertada YouTube-ka waxaa daabatay ku dhawaad 2 milyan oo tiro boqolaal raacsan soo ma dhigi karno waa heestii ugu saameynta badan sanadda 2024 qaybaha kala duwan ee baraha bulshada ayay heestan si waliya u qabsatay gaar ahaan aalada TikTok-ka dhalinyarada isticmaasha aaladaas waxay ka sameeyeen muuqaalo ka turjumaya heestan adiga sidee ay ku taabatay heestan ma ka mid ah dadka muuqaalada ka sameeyay heestan fikirkaada qaybta hoose ayaad nala wadaagi kartaa waad ku maasantaa waqtigaada qaaliga ilaa ay dhamaadka hadaad ila soo gaarta muuqaalkan haddii aad hore u ilaawdeen ay noo like gariso muuqaalka walaal waxaan ku xasuusinaynaa in noo like gariso muuqaalka la wadaag saaxiibada oo shir garay